واتاي صاحبي الكسو دوادا عشركينا مانتا وحو كسابسن yahay waa topic موضوع. Today maanta I want waxaan doonayaa buu leeyahay to suggest here inaan halkaan ka soo jeediyo a topic موضوع inaan ka soo jeediyo which I desire موضوعaasoo aan doonayo which I desire موضوعaasoo aan doonayo raba anigu to talk about inaan oogu hadlo the Islamic religion diinta Islaamka to talk about inaan oogu hadlo the Islamic religion diinta Islaamka mawduucan doonaya inaan oogu hadlo ayaan doonayaa halkan inaan ka soo jeediyo maanta when we're Muslims markaan nahay muslimiin when we're Muslims markaan nahay muslimiin we must always remind ourselves waa inaan haggii goorba nafsadaheena aan soo xasuusinaa we must always waa in haggii goorba haddii alaba remind ourselves nafsadeena aan soo xasuusinaa our religion diintanada waa inaan soo xasuusinaa annaga nafsadeena mar waliba waa if we act on haddii aynu ku dhaqanno our religion diintanada haddaan ku dhaqanno we can expect waan rajayn karnaa peace nabad and stability iyo xasilooni peace nabad and stability iyo xasilooni labadu waan rajaynaynaa inaynu helno bar laakiin if we reject haddii aan iska diidno if we reject haddaan diidno to take inaan qaadano the orders of our religion amarada diintanada ay nafarayso amarada diinteena haddaan iska diidno maxaa dhacay we will be in endless troubles waxaynu ku jiri doonaa dhibaatooyinkan aan dhammaadka lahayn we will be in waxaynu ku jiri doonaa endless troubles dhibaatooyinkan aan dhammaadka lahayn forever weligeena waan ku jiraynaa forever weligeena waan ku jiraynaa dhibaatooyinkan and in the doomsday maalinta qiyaamahana Allah will banish us ilaahayna wuuna iqaabi doonaa Allah will banish us ilaahayna wuuna iqaabi doonaa sidaas darteed isku day inaad ku dhaqanto diintaada wherever you are and however you are si walba aad tahay iyo meel walba aad ku sugan tahay وبالله توفيق إلى أديتك سحن هنوتوسيا واتاي فضلنا ديات كيش مقالك لايك صار سيدا سلامي ده ديات كعسب تاجنا الكونا سبسكرايب صار وحنصارنا وددان كتاقي لهن لح بقولا سبسكرايبرز مات سنت